halkan waxa aan ku gudoomaynaa deeq buugaan ah oo aad iyo aad important ugu ah goobtan aan joogno oo ah dugsiga sare ee Sheekh Umar Goob deeqda waxbarasho ee buugaanta oo dictionary iyo science noocyada kala gedisan ay isugu jiraan badi ayaa waxa soo gudbiyay deeq bixiyayaal u dhashay qurba joogta gobolka Awdal kuwaas oo ay hogaaminayso Sucaad Mustafa Cabdiraxmaan Qaadi iyo walaalayaal badan oo kamid ah bahdii la soo wadaagtay soo diyaarisay goobtan maanta aan joogno oo aad farxad u leh ayaa waxa kula wareegaya hadii rabbi xugmo aniga oo kamid ah bahda waxbarashada qaar kamid ah waxgaradka degmada maamulihii secondary-ga Yaasiin Maxamed Suldaan ayaa waxa deeqdani soo gudbiyay oo keenay mayor ku-xigeenka degmada Boorama mudane Maxamed Maxamed Faarax iyo xildhibaan Ahmed Maxamed Cabdoosh iyo Cabdikariim Daahir Fadl sida ayaan ku gudoomaynaa deeq wanaagsan waxbarasho fiican iyagana aan hambalyo leenahay insha Allah kuwi ka sii siyaadiya ee inta in ka badan oo ka qiimo badan keena maanta waxaan leenahay hambalyo ilaahay aqliga iyo cilmigaba ha idinku barakeeyo أنا هذا كأني قبل ذلك ما حنقول لوين يا ياسين محمد سلطان أو معمولها تكسر سريع شيخ عمر قاض. هذه الركنة اللي حكمها النادية والله بلس بقريبة جدت في عالم ممكن تين. جعلها مرة بين الجوكتيسان محتركة ويسوق كمان تجونا ملها دير ملها لاب ملها لابرتري وحيابه أدقي وحبر الشو أنت بدنا نرضى بهناين ملها. نسوي قدنا كتذكر والله هي قرب جوكتها سعادة نص تبتوقع متهاي وهذا وقمه العلم إنه waxaan ka codsanaa inaan bal waxyaabahaasi wax badan ay naga soo taraan oo xiriirkayga intan oo ka sii bato maadaama aan dadka noo maqnaa ay yihiin ilaahay ka sugo subxaanahu wa tacaala aad waxaan ugu dhiirigelinaa bal inay gacantan tukad badan ay nagu yeeshaan waxaa kaloo aad ugu mahadcelinaa mayor ku-xigeenka Maxamed iyo xildhibaan Ahmed iyo Cabdikariim iyo bahda saxaafadaba iyaguna sida fiican ay waqtiga qaaliga noo soo siiyeen iyaguna halka noogu yimaadeen iyagana aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan leeyahay Sucaad deeqdii wayna soo gaadhay aad markii hore noo sheegtay konton boog dictionary sayniska group noocyo fara badan u qaybsamaan wayna soo gaadheen iyagoo sidoodiya mas'uuliyiin aad u xilana wayna soo gaarsiiyeen wixii kale aad markaa ugu tasheen gobolka gaar ahaan iskuulkana waan ka sugaynaa iyagoo baahiyaha badan ay iskuulka ka jiraan cidda iskuulkana uu markaa sugayo ee mar walba u haqan taagayana waa adiga iyo Sucaad ciddii lamid ahayd gobolka u dhalatay waxaan leeyahay inta ka badan baan kaga fadhnaa biidnaahi tacaala intan maanta noo keenteen aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa intaay fadan oo horaba iskuulka ugu weyn ugu lahaa xildhibaanada maanta ay la wadaagayeen iyagoo deeqdan sida deeqa fara badan kaana insha Allah tacaala inuu soo hogaamiyo iskuulka aan ugu talagalay tole agabkan waxbarashadeen wadnay waxay naga soo gaadhay walaalkeen ama walaaliheen oo ku nool wadanka Ingiriiska khaasatan waxa hormood ka Sucaad aad baan Sucaad uga mahadcelinaynaa in lagu dayday inay mudan tahay Sucaad guud ahaan qurba joogka reer Awdal iyadoon la kala reebay wuxuu u baahan yahay dugsigan dilaad baahiyaadka uu ka dhawaajiyay maamulaha dugsiga maanta waxa sharaf ah muddo hore oo halkan iman jirnay iyo maanta quruxda dugsiga ka muuqata way kala duwan tahay waxaad arkaysaa in haddii yihiin dadkii deegaanka haddii yihiin maamulkii waxbarashada iyo haddii yihiin macallimiinta iyo maamulihii dugsiga ay u heelan yihiin inay dadkooga si tabaruc ah oo niyad samiya ay ugu shaqeeyaan in la garab joogsaday mudan yihiin inay baahiyaha ay sheegeen wax looga qabtay mudan yihiin in loo soo wada jeedsa weyi waxbarashada iyo kobcinta waxbarashada degmada Dila taasi oo aan oran karo waxay nagaadisay oo joojisay dad badan oo ka bixi jiray waxbarashada oo markay aw barina gaar kari waayaan boorama tii kari waayaan ay xaafada ka waayaan in waxbarashada kalluumaan bay noqon jirtay iminka deegaano badan oo ku xeeran degmada Dila ayaa waxa keentay in dadkii waxbarashadii degmadii ka bartaan ku nagaadaan taas si aan u xoojino waxa muhiim ah inaynu garab galno dugsiga iyo macallimiinta dugsigaba markastana waxaan leenahay cid kasta oo tabta dugsiga iyo waxbarashada diladna waan ku soo dhaweynaynaa
waxaana leenahay meesha iyo fikirka aad geliseen ilaahay baan inuu ajar idinku bedelo dadkaa loo keenana waxay nagu soo dardaareen sidii loo xifdiyi lahaa inay ku dadaalaan degmada Dila ay kulli xifdiyaan hadday macallimiinta yihiin iyo hadday ardayda tahayba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu joogno dugsigan taariikhda leh ee qoyska uu ka soo jeeday loogu magac daray qoys aad iyo aad u faa'iido leh taariikh leh runtii buugtan ama deeqdan aynu sidnay maanta in badan baan yaasiin ka soo hadli jirnay ay su'aadna soo sheegi jirtay waan inay soo gaareen maanta oo inaga ku wareejinayna intanuna ma aha waan istaba socdaano habeen hore ugu dambeysay Cabdikariin aanoo joognaan la hadlay labiyo ka tan buug weyn waxaanu wareejinaynaa qaar kalena way soo dhowyeen kulay maalmahan weegan fooday nagu soo hayo way inoo imanayaan kuwa kalena dhexda ku soo jiraan way soo yar daba socdaano kolba waxay soo yar saaraan malaha markabkii waxbay soo saaraan su'aad aad iyo aad uga dhalisantay iskoolkan aad baanan baahiyihiisa gaarka ee deemigaba uu ka hadlayo yaasiin aan ugu sharaxnay uguna sheegnay inuu u baahan yahay iskoolkani maxaa ahayd deer anay soo galayaan xoolihii markaas fatigiisuna dee uu in deerkaas marka deerkaas oo dee tamar lahaana ka yar xoog ron dadkii gacanta ku hayay laakiin dadka la doonayay loo baaqay iyaga yihiin runtii ciido kalena waanu kala hadlaynay ilaa shalay ilaa xalay way jirtoonu kala hadlaynay oo hay'adaha samafalka ka mid ah iyagana insha Allah waynu ka sugaynaayo xalay meel fiican bay wax noo taagnaayeen kolkaan wada hadlaynay iskoolkan Dila wuxuu inoogu fadhiyaa meel weyn buu dee taariikh weyn buu inoogu fadhiyaa muhiimad gaar u inoo leeyahay iyo dadka reer Dilaba deegaan ahaan iyo gobol ahaan qurba joogay naga maqanina runtii deebriyaan xagga ragga laga yar firfircoon yaho hablaha ugu firfircoon oo in gabadh Hodan Maxamed Nuur Faahi tawaynanta iyaguna waxay kamid yihiin hablaha waxay kamid yihiin ugu cadaad ee mar walba ay war halka maxaa wax looga qaban lahayn halka maxaa sida loo yeelay laakiin ma aragna rag markaa su'aad iyo Hodan iyo hablo badan oo runtii gobolka iyo degmadaba kamid ah kana soo jeeda waxaanu leenahay waa la idin sugayaa intan ka badan iyo dadaal aad u weyn waa la idin sugayaa raadilay yaasiin waxa leeyahay idinuna tamartiina daawal buu dadaalayseene intii inaad ka sii hormarisaan ayaa la inaga sugayaa sare Sheekh Umar Good oo aniga ay noqonaysa kullay markii labaad ee buugan ka qaybiyo ama buugan guddoonsiyo kullay toole markii horena Fadlan Stationery baa ku deeqay alaabtii aan wadnay maantana qurba joog alaab ay ka socoto oo gabadha su'aad ku calaamadaysan tahay ayaan kullay sidnaa waana farxad baan iga tahay alxamdulillah waxa kale oo iftiiminaya Dila ama iskuulkaygaasi wuxuu noqonayaa marka la yiraahdo dalkii Soomaaliya loo oran jiray dugsiyadii ugu horreeyay la bixiyay dhulkii loogu talagalay in aqoon ka hirgasho ayuu ahaa maantana waxaan joognaa waxa weeyaan waa dugsigeygii sare oo aan doonayno inuu la jaan qaado kuwii caalamka kullay waxaad ogtihiin degmada kala go' yar baa ku dhacay xag mujtamaca noqoto ama ha noqoto xaqii ardayda oo laba deegaano waxa ku furan waxbarashadu aad uga socoto oo midna ay baratahay midna ay buurma tahay waxa aqoontii ama waxa qaybtii waxbarashada ee Dilaad hoos u dhigay waa labada meelood ee waaweyn ee ku calaamadaysan horumarka qaybta waliba waxbarashada oo tayntii dadkuna marka ay yaraatay oo barreeqa intooda badan ay tagiyeen wixii ka soo halaana buurma loo geynayay waxbarashada carruurta maanta kullay waxa guula in degsiimo loo helay inuu ka hana qaado dugsigii sare oo aan ma arkayno halka uu marayo sanadkii hore iyo sanadkan ba isku mid maaha maanta wuxuu marayaa halkii marxalad aad u qurux badan baahiyaadka inta ka dhimanna waxa weeyaan heer laboratory iyo deerkaas ugu weyn caqabadaha kullay mid waxaan farayaa bulshada degmada Dila iyo maamulka iskuulka midna waxaan farayaa inta ku xeeran ee ay waajibka ku tahay inay wax ka soo geystaan
aan farayo dilaya degmada waxa weeye in contributionka qaybtoodii wax walba de waxa ka qurux badan wax si waxaan haystaa wax ugu darba ka qurux badan halka xildhibaan Axmed Xali sheegay de hay'adaha aanu la hadlaynay waxa ka mid ahay ama aan oran karnaaba war maxaad hawsha ka qaban kartaa markaan weydiinay maxaad haysaan bayna weydiiyeen kama gaabsan kama yaraysanayno intii maamul oo hadlaynaa laakiin waajibaadka ina saarana wuxuu yahay waxaan haystaadi marka Yaasiin waxaan faraynaa biidnillaahi kariim intay doontaan ha noqotay in haynteeni aynu ku xisaabtano laano waxaan haynaayo wixii kalena deeno ugu dara qolayga qurba jooga waxa waajib ku ah ama dalka ha joogaan oo kamaanta dila ka maqanay boorama jooga qurba joog uu noqonayaa ee hantida haya ka hargeysa hayana hadalkeed badaa wixii ka shisheeyana waxa weeye waajibaad gaar ah waxaan ku saaraynaa in ay deyrkaasi waajib ku tahay dhismihiisa oo iskuulkaasi uu la hana qaado iskuulada faciisa ee dugsiyada sare ee wadanka ka jira oo wixii ka dhiman baahiyaadkiisa oo ka koob tahay deyrkaas iyo laboratory-gii iyo wixii la sii halmaa oo ah balaarintiisa bilcintiisa tartansiintiisa waxay ku waajib tahay dadka deegaanka meeshay doonaan baa joogaan ama dal joogaan ama dibadda joogaan in diyaar ay u soo noqdaan wixii dhowr jeer horena kulli waan ka hadalnay reebool ma xataa qaarkood dad maraan ku qorqornay macallimiinta mushaarka uga jirta laakiin wixii agajiid baa jiro oo cid lagu haleynaya la garan maayo danta guud inta badan waxaanu ka doorbidnaa danta gaar bal waxaan leenahay bulshada deegaanka oo dhan in danta guud ay u soo jeestaan oo aqoontu waxay kor ka tahay furaha horumarka haddii aqoonta la horumarin waayo waxa lagu horumaraya ma jiro ay horumarayaan aqoontoodii oo ay horumarayaan dugsiyadoodii oo ay bal danta guud u soo jeestaan intaan faraynaa kulli waa intaasi qurba joog iyo qolqol joogba wayna u waajibanaanahay inaguna ka maamul ahaan ama hay'adana garaacno tu islaamiga iyo tu binaadamtinimo ka shaqeysaba oo meeshay doonaan baa joogaan waxay nagu waajibay inaanu u raadayno wixii baahiyaad ee maqan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan wareejinaynaa waa buugta miska u taalo waxayna hordhac u tahay agab buuga oo tira oo soo socda intaan maanta oo tusaale waxaan soo bixinaynaa waxaanu leenahay sucaadiye intii soo urursayna Allah inaga jisaysiyo waran mahadsantiin waxaan u sheegaynaa maamulaha iyo bahda waxbarashada ee diraadna in feeskii koobaad yahay hadda dhowr iyo 7 buug kala noo sheegay in ay soo dhow yihiin qayb kalena la diyaarinayay sidii loo soo rari lahaa marka wuxuu waysa soo daba socdaan biidnillaahi kariim ma hadii buugta laga xaqabeelana waxa qurux badan inaan ka shaqaysiino inay meeno yaalaan khaanadahan maaha waa in cidii aynu u aragno inay aqoonta ka mid dhalaneysaba ay haynayso soo celin kartana waa inuu noo dhiibno